bishu ay tahay 27 August sanadka 2017 lagu soo gabagabeeyay halkan shir ay isugu yimaadeen wafdi ka socda Khaatumo iyo madax ka tirsan Somaliland waxaana ka soo baxay shirkaas qodobadan hoos ku xusan koow waxaanu tacsi u diraynaa eheladii iyo qaraabadii ay dhimashadu ka soo gaadhay isku dhicii ka dhacay magaalada Buuhoodle dhawaan ee dhex maray labada reer ee walaalaha laba waxaanu bogaadin iyo hambaliyo u diraynaa odayaashii iyo waxgaradkii ka howlgalay ilaahayna ku guuleeyay inay soo afjaraan shaqadii halka ka dhacday saddex waxaanu isla garanay in meel looga soo wada jeesto xaaladda cusub ee ka aloosan Buuhoodle afar in maamulada Garowe iyo Muqdisho ay joojiyaan faragelinta qaawan ee ay ka wadaan deegaamada Somaliland guud ahaan gaar ahaanna Buuhoodle shan in caalamku ogaado wixii dhibaato ah ee ka dhaca Buuhoodle ay ka mas'uul yihiin labada maamul ee Garowe iyo Muqdisho lix in siiba maamulka Puntland joojiyo dhibaatada uu ku hayo nabadda iyo geedi socodka dimuqraadiyadda Somaliland toddoba in garaadada cuqaasha iyo waxgaradka wadajir uga hortagaan wixii dhib iyo dhaawac nabadda iyo nolosha dadka gaarsiinaya in Somaliland marnaba aanay aqbali doonin in meel ka mid ah lagu qabto shir lagu kala qaybinayo dadka iyo dalka Somaliland laguna burburinayo wada hadallada Somaliland iyo Khaatumo sagaal waxaanu uga digaynaa shirkadaha iyo hay'adaha diyaaradaha inay fasax la'aan ka soo degaan garoomada si loo sugo ammaankooda toban waxa la magacaabay guddi laba geesood ah oo talo bixin ka soo jeedin doonta qabashada shirweynaha loo dhan yahay intaas qodobaas 10 qodob ayaa lagu heshiiyay oo ka soo baxay shirkii noo soo gabagaboobay maanta aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.